maamadan oo boorso lacag wadato ayaa wadankeeda dib ugu laabanayso waxaana go'aan ku gaaraysaa saddexdeeda wiil midkii lacagteeda ku wareejileed in ay taxaanto waxay soo horfariisanaysaa wiilkeeda yar gurigiisa waxayna iska qof aan guri lahayn wiilkeeda ayaa soo agmariyay markuu agmaro lacag ay dhulka ugu daanaysaa waxay ku leeyahay igraan lacagta adiga miyaa iskale wiilkeeda wuxuu leeyahay lacagtan aniga iskale intuu fariistay lacagta qaana meesha ayuu ka tagayaa maalinta xigta waxay imaanaysaa wiilkeeda kale ku xigay gurigiisa ay soo horfariisanaysaa waxay iska qof maskiin ah guri lahayn wiilkeeda ayaa soo agmariyay markaas ay ku leeyahay igraan lacagtan adiga miyaa iskale wiilkeeda intuu fariistay ay ku leeyahay lacagtan aniga ay gadaa lacagta ay gurubsanaa meesha ayuu ka tagayaa maalinkii saddexaad waxay soo horfariisanaysaa wiilkeeda weyn gurigiisa ayadoo isdhigaysa maskiin markaas wiilkeeda ayaa agmariyay markaas ay wicisaa igraan ay ku leeyahay lacagtan adiga miyaa ka dhacday wiilkeeda ayaa kusoo laabanaya markaas ayuu maamadu wuxuu ku leeyahay lacagtan aniga igama dhacan lacagtan wiligeeda jeebkeeda ma gashin ayuu leeyahay $10,000 ayuu ku leeyahay maalintii xigta waxay soo booqanaysaa guriga wiilkeeda weyn markuu arko hooyadiis inay soo booqato aad ayuu u farxayaa soo wuxuu ku leeyahay caadi ma maanta hooyo ayaa soo booq gudaha soo galay ayuu ku leeyahay markaas maamadu soo wadaa kursigan ayuu ku fadhiisana markay kursiga ku fadhiisiyo waxay ku leedahay wiilkayga maanta waxaa rabaa saddexdii in aan tijaabiyo qofkii ku haboon inuu halkan sii maamulo ayay ku leedahay labadeeda wiil ayaa durba meesha imaanaya markay imaadaan waxay u sheegaysaa in ay rabto maanta saddexdu imtixaan in ay ka qaado waxayna ku leedahay waxaan rabaa in aan ogaado qofka ku haboon inuu halkan maamulo wiilkeeda yar ayaa soo boodiyay wuxuu ku leeyahay hooyo aniga ayaa ku haboon inaan halkan maamulo waayo aniga waxaan haystaa shaqo aad u fiican wiilkeeda kale ayaa soo boodiyay wuxuu leeyahay hooyo aniga sidoo kale aniga waxaan haystaa shaqo aad u fiican waana maareyn karaa ayuu leeyahay dhaxalkaani maamadan ayaa isla markii go'aankeeda qaadanaysa waxayna ku leedahay hantideeda waxaan ku wareejinaya ayay ku leedahay in uu maamulo wiilkeeda weyn idinka uma qalantaan ayay ku leeyihin wiilashan ayaa qaylinaya markaas ayay waxay ku leeyihin hooyo soo maxaad sidaas u samaysay markaas ayay waxay u sheegaysaa labadooda inay ku dhaceen imtixaanka waxaana leedahay imtixaan ayaa idinaga qaaday markay lacagta $10,000 aad qaadateen ayaan ogaaday inaad macnaha aad u qalmin inaad dhaxalkan sii maamushaan wiilashan isla marka way ogaanayaan in maamadan hooyadood ay ahayd oo lacagta $10,000 ay ka qaadanayeen isla markiina lacagta waxaa lagu wareejinayaa wiilkii kale wiilkan hooyadiis hab ayay siinaysaa